magacaygu waa Maxamed Daahir ku soo dhawaada qaybta koowaad ee qormooyin door ah aynu ku magac daray looma ooyaan dhulka danta guud. Qormada maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa dugsigii dhaqaalaha guriga ee Xaaji Haweeya dadkuna u yaqaaneen Women's Club. kani waa gidaarka dugsigii hore ee dhaqaalaha guriga Xaaji Haweeya. dugsigani waxa uu ahaa mid lagu barto xirfadaha kala duwan. waxa uu ahaa dugsi ka mid ah dugsiyada ay maamusho wasaaradda waxbarashada isla markaana macallimiin mushahari ay joogaan sida uu sheegayo Maxamed Sheekh Cali. waxay ahayd iskuul dawladeed macallimiintii maxaan ku dhahday dawladda u shaqeynayeen mushaharka qaadanayna ay joogaan arday badanna dhiganayeen dhismo dawladeed baa maalin dugsigu lahaa xaflad kuna soo bandhigayay xirfadihii ardaydu barteen iyo wax soo saarkoodii ayaa waxaa kala soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenkii waxbarashada gobolka Maroodijeex Galbeed Maxamed Sheekh Cali Cismaan. Maxamed Sheekh Cali waxa uu ardaydii ku wargeliyay in dugsiga dayactir lagu sameynayo sidaa daraadeedna ay fasax ahaanayaan muddo kooban. nasiib darro ardaydii fasaxii kamay soo noqon. hadaba maxaa Maxamed ku kalifay arintaas? horta way jirtay inaan ahay ninkii ardayda fasaxay laakiin fariin madaxdaydu isoo fartay oo la igu yiri ardaydaasi xaflad bay leeyihiin kala qayb gal xafladda waxaanad u sheegtaa in la fasaxayo muddo yar oo 15 cisho ah isla markaana iskuulka loo dayactirayo oo la gacan marinayo Istanbul iyo Rinji iyo meelaha jajaban waxa soo la hagaajiyo dayactir lagu sameynayo. anigu markaa waxaan isu haystay in bushaare sida xafladii markii aan ka qayb galay dad badan ay hadleen markii anigu hadalkii soo gaaray arintii de bushaare sida ilaa anigu bushaare sida bushaaradii baan u sheegay in iskuulka loo dayactirayo oo loo hagaajinayo dumarku halkaa sacab badan iyo mashxarad badan ay ka galaan aad bay ugu farxeen runtii laakiin fasaxii kama bay soo noqon dumarkii ilaa imika kama soo noqon arintu sidaas ayay u dhacday ardaydiina fasaxii bay galeen runtii waxay soo bandhigayeen xafladooduna waxay ku saabsanayd wixii ay sanadka qabteen oo xirfada aha oo dharkii ay toleen aha oo funaanada ay toleen aha oo alaabo kale oo guriga lagu qorxeeyay toleen ay sameeyeen ahayd oo cuntooyin ay kariyeen ahayd oo dumar la baray sida looga shaqeeyo meelahan saaloonka ee dumarka magaranaysa qaar la baray ay ahayd qaar baray sida dharka loo midabeeyo loo dhar la karinayo midaba loo sameynayo ahayd waxyaabahaasi soo bandhigayeen oo shaqo fiican ahayd kolka arintaasi sidaasay u dhacday runtii arintaa waan ka xumahay waxaan uga xumahay macallin baan ahay cid kastoo iskuul wax u qabata waan ku farxayaa waana balyeynaya cid kastoo iskuul wax kastoo waxyeello soo gaadhana waan ka naxayaa waana ka xumaanayaa sidaa awgeed ayaan uga xumahay arintaa. inkasta oo dadka qaar ku doodeen in marwada dugsigii qaadatay haddana dawladdu way ka murantay in qoyska madaxtooyadu arintaa ku lug leeyahay. mas'uuliyiin dawladda ah ayaa shaashadaha soo fadhiistay iyagoo ku doodaya in laga iibiyey ganacsade Maxamed oo Siciid Geedi. Women's Club wuxuu ku jiraa dhulka hantida dawladda waana la iibiyey waxaana laga iibiyey annagu ma hayno meel ka keenayna garan mayno meel ay marwadu ku qaadatayna garan mayno GR-ka aad halkaa ku aragtaan waxa ku qoran muwaadinkii laga iibiyey lacagtii laga siiyey oo aad arkasaan mulkiyadda cidda loo sameeyey ee loo qoray ee la yidhi markay lacagtii bixisay mulkiyad lahaanshaha loo sameeyo waa cidda halkaa ku qoran meel ay kaga jirto marwadu oo ay ku qaadatay dhulna ma hayno waxaana iibisay guddiga iibka qaranka hantida qaranka oo dokumentigoodii ka yahay dhulkaana waxaanu ka iibinay ganacsade Maxamed aw Siciid Geedi. in ma aha waxaana cadeyntooda hayn in lagula kaco aflagaado oo marwada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaynu arkaynaa in waxaanay geeyinaanay meel aanay shaqo ku lahayn in lagu eedeynayo
talo waa kuwa guddiga iibiyey goobta waxbarasho ee ardaydu dhiganaysay wadadayse u mareen haba iibiyaane maxay wasaaradda waxbarashadu kaga maarantay ardaydii dhiganaysay iyo wixii ay baranayeenba wax yar kadib waxaa la dumiyey dugsigii waxaana lagu taagay boodhadh ay ku qoran yihiin so barkin oo ah shirkadda ganacsadaha la sheegay in laga iibiyey sida documentka halkan yaala ku cad guriga waxa la iibiyey 2015 bishii 9aad meel ay ku caddahay ama ay ku jirto in xukuumaddu ka iibisay qoyska madaxweynaha guriga women's club ka ma jirto waxaan ummadda u sheegaynaa na daawanaysa aqliga wanaagsan inay tahay been cad oo runtii aan xishood lahayn oo loola bareeray qoyska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inkasta oo markii hore iyo marar dambaba lagu dooday laguna qoray inay shirkadda soo leedahay haddana ugu dambeyntii xaruntii dugsiga ee Xaaji Haweeye waxa ay ka tirsan tahay deyrka hodheelka Cali Jirde ee magaalada Hargeysa talow mas'uuliyiintii ku indhaadka arrintan maxaynu nidaahnaa si ay u dhacday iyo aqli ku taliyayba dugsigii ardaydu dhiganaysay ee qarankooda lahaa waxa uu maqaaxi laga cunteeyo u yahay meherad la sheegay in qoyska madaxtooyadu leeyahay hadda isbarbar dhig maqaaxi cunto iyo madal waxbarasho habeenada qaarna heesaa lagu tuntaa oo lagu caweeya maynaan maqal dhulkii qaranku wada lahaa wax loogu bedelay haddaba tani ma noqon kartaa xatooyo xoolo ummadeed maxaynu ugu yeedhnaa mulkiilaha maqaaxida maxaynu nidhaahnaa ganacsadaha magaciisa la isticmaalay maxaynu ugu cudurdaarnaa mas-uuliyiintii difaaca la soo fadhiyey tiifiyada midba meeluu ka soo galaba kama nadiif noqon karo godobta laga galay waxbarashada iyo ardayda bannaanka loo dirayba iyo weliba qaranka dhacan midna alla xalaal miirasho waanaan lahayda waa inoo mar kale iyo qormo kale oo ka tirsan barnaamijkan looma ooyaan dhulka danta